ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble oo ka mid ah duubabka dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan ayaa maanta kormeeray qeybaha ay ka kooban tahay magaalada Beledweyne iyo buundooyinka magaalada si uu wax badan uga ogaado xaddiga ay leedahay fatahaadda webiga Shabeelle ee saameysay magaalada iyo weliba saameynta uu ku yeelatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ujeedka ugu weyn ee kormeerka ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble ayaa ahayd sidii uu dhibta ula qaybsan lahaa bulshada magaalada Beledweyne ee saameysay fatahaadda webiga Shabeelle. kormeerka kadib ayaa ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble oo warbaahinta kula hadlay bartamaha magaalada Beledweyne ayaa sheegay in bulshada magaalada Beledweyne u baahan tahay waxqabad dhab ah cid walba oo wax ka qaban karta mas'uuliyiin shacabana ugu baaqay in si degdeg ah dadka wax loogu qabto. saacadu waa 5 saac iyo 5 daqiiqo waxa taaganahay arkada Beledweyne cid kasta oo danaynayso arrimaha Beledweyne ha fiirsato sawirada maanta aanu qaadayno. waxaanu ku sugannahay ummaddu inay aragto cid mas'uula iyo cid aan mas'uul ahayn. maxaa kaloo jiro waxaanu aadi doonnaa buundaweyn liiqliiqato labadaas meelna waa tegi doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo. haddaba waxaa loo baahan yahay waxqabad dhab ah oon huuhaa ahayn ayay ummaddaannu u baahan tahay. sidoo kale ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble ayaa fariin u diray dhammaana dadka ku abtirsada gobolka Hiiraan ee jooga dal iyo dibad. hadda waxaannu ka soo gudubnay buundada liiqliiqato waxaan joognaa dugsiga Axmed Warsamo. waxaan u sheegayaa dadka reer Hiiraan oo meelaha ka hadlo oo yiraahdo maxaa la yiraahdaa baraha bulshada dadka reer Hiiraan oo meelaha ka hadla oo ku caaytamayo meelaha la leeyahay baraha bulshada anigu waxaan u aqaanaa goobta caayde beledkiinu waa ka buundaweyn waa tagnay hadda liiqliiqataan joognaa laamigii dheeray waa soo marnay haddaad dad jira aad tihiin beledkiinu sidaan ma ahaadeen. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse, telefishinka Somali News, Beledweyne.